السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسل هذا مر لبعض يوتيوب channel كان نخلاعب وحنفليا إن عافماد وجود داون صن سماد أقصونا هي وطن القار أي عذر كورونا فيروس وأذو السيرانية مركها جرتوي ذا قرمو كوحا قربو حيرتشينيان إن أسبوع إذا كورونا ذا كوسن نقطان أما علميتين مركها فكرة المتقنة أما مات فيديو جين نوع كسبسنية يعني أهاني يومين بس لكن دتك إداوة ayaa mataqaana fikradan ama su'aashan isoo weydiiyay anaan jeclaaday mataqaana inaan uga soo jawaabo waxayna tahay garoonka ayaa waqtiyo badan ka maqnaa ama coronavirus darteed ama waan xanuunsanay darteed ama kubadiiba mataqaana waa iska daayay oo hadda ayaan doonay inaan dib ugu soo noqdo marka maxaan sameeyaa ama sidee baan ugu soo noqdaa ama talaabadee baan qaadaa si aan u ahaado macnaha heerkii aan taagnaa waagii hore si aan u taagnaado marka waxaan leeyahay introga ka bacdi ayaan su'aasha ka jawaabaya haddaba waxaan isku dayi doonaa anoo adag ku caawinaya saad garoonka ugu soo noqon lahayd laba shay labadaas shayna waxaa hoos iman doona shayaal fara badan ama waxyaalo fara badan marka si fiican u dhageyso waxaan isku dayi doonaa inaan markaa labada shay aan mar walba kala qaado marka shayga koobaad isku day inta aadan garoonka tegin inaad marka koobaad aad jirkaaga kala saartid oo murqahaagana dhistid maxay tahay macnaheedu isku day marka koobaad inaad gymta tagtid dadku ama ciyaartooyada badankoodu marka koobaad kubad kuma bilaabaan haddii ay waqti badan kubadda ka maqnaayeen waxay ku bilaabaan marka koobaad inay murqahooda dhisaan marka adi ahaan waxaan kugula talin lahaa marka koobaad inaad isku daydid intaad gymta tagtid inaad murqahaaga aad dhistid ood awoodii murquhu u lahaa waagii hore inaad dib aad mataqaana usoo dhistid waayo murqahaagu ma yaqaanaan ama murqahaagu waqtiyo badan maadaamay fadhiyeen haddaad garoonka gelisid oo mataqaana kubad markiiba ku jiidid aad mataqaana intaad qaadatid aad ku shuudid ood isticmaashid murqahaaga ama kubaduba aad siiro qaldan u qaadatid ood shuudid waxaa laga yaabaa inuu dhaawac siiro fudud kuusoo gaaro markaas soo dhaawacaasina aad mataqaana siiro fudud kuusoo gaadheen isku day inaad murqahaaga marka koobaad aad dhistid hal cisho ilaa 2 cisho ilaa 3 cisho أنا مركب كوباد إذا مرقها جدستي أو متقنا مرقها هذا أوتوماتيك وحيس كديه مركب إذا أديار جروب وحيانا كدون إنه وحنا أصلا صعب مسكح هذا مسكحية نيتشرا هامبا وديار جروب بس مركب سكوت مركب كوباد إنه تشيم تتكتد أو مرقها هذا أديو سودستي أو متقنا مرقها هذا وحوجا dynamic movements أتسميه waxaan uga jeedaa dynamic movements waxay tahay jirkaaga ayad adoo kala saaraya aad hadana mataqaana aad ka shaqaysiinaysa waayo ma sameynaysid gym waxaad sameynaysaa waxay tahay ilaa kubad bad ciyaar doonta qof markuu gym sameeyo markuu qof kubad ciyaar way kala duwan tahay dadka gymta sameeyo waxa laga yaabaa jirkooda inuu kala baxsanayn balse laakiin adigu waxa tahay qof mar walba ay u baahan tahay in jirkaagu kala baxsanaado waayo waxa laga yaabaa in lugtiisa lugta kale ay kala baxdo ama gacantaadu iyo jirka haanba inaad kala baxdid marka isku day inaad murqahaaga soo dhistid oo jirkaagana soo kala saartid markaa ka bacdi waxaad isku dayi doontaa inaad garoonka tagtid macnaha adoo soo sameeyo xoogaha 2 isbuuc ama isbuuc in gymta ku soo jiray oo soo alamitay gymta oo mataqaana jirkii uu diyaarsan yahay iyo murqihii iyo maskaxiyan baa diyaarsan tahay oo jirkaagu ugu talagalay inuu waxyaalo ka duwan uu soo socdo ay mataqaana tagi doontaa isbuuca dambe garoonkii haddaba garoonka waxaad muhiimadda saartaa inaad step by step aad garoonka kusoo gashid adoo la alimteenin koox isku day inaad marka koobaad adigu intaad tagtid garoonka aad isku daydid wuxuuga paceska inaad macnaha seeska hoose aad kasoo bilowdid kubadda adoo macnaha kuguma qaadanayso oo kuma lihi bil dhan samee balse laakiin inaad marka koobaad maalinta labaad aad isku yardidid inaad jirkaaga aad mataqaana aad macnaha yara aad raacisid dareenka ah inay kubadda ciyaaraysid oo macnaha waxaan uga jeedaa inaad kubadda tusaale ahaan oo kale baas aad ciyaartid aad qof leer ciyaartid baas oo kale inaad kubadda lugta midigta ama bidixda aad ku yar aad ku jiidatid oo aad ku yar jiidatid waxoogaa yar samaysid dribbling adoo xawaaraha u fiirso adoo xawaaraha ama limitadu ay tahay 30% maxaan uga jeedaa 30% adoo 30% ilaa 50% aan idhaahdo welibana isku day in xawaaraha limitada aad samaysid ay ka koobnaato 30% ilaa 50% يعني كبرنا بقولكي بكونتن وايو هدي بقولكي بكونتن أتكسر وحوين معنا بقولكي بكونتن حوارها على متين وحوين قف عادي آيات سميتها سوكي ومعناها على متين شيء مركا اسكت ما دام الوقت بدن كم غلط على متدا إن تسودي بقولكي بصدن لا بقولكي بكونتن حوارها على متدا يعد حوارها على متدا تقريبا فانسنين وحنقول شيء ده هدي سؤال هذا كبد قبتيد أو متقنا لا أردسيد يادن حوج أردي من وجهه معناها وفيرسو بقولكي بصدن أظن معناها حوارها هديت سؤالها
aad u ord badan tahay adoo xoogna u ordeynin aayarna ordeynin macnaha meelaha dhexdhexaadka ah oo ordaya kubadda u jiido ha u jiidin macnaha xoog u ordidoo kale waxaan filayaa inaad fahmi doontid balse laakiin waxaas oo dhan mataqaanaa xataa waxaa jirta anigu markii aan dhaawaca galay ayaa mataqaanaa sidii aan usoo noqon lahaa ayaa mataqaanaa waxaa la isoo siiyey macnaha warqad ah inaan macnaha stebyadaas oo dhan aan sameeyo taa lafteeda idinkoo arkeen waxaan soo dhigi doonaa macnaha screenka ama displayga mataqaanaa markaa idinka lafteeda isku daya markaa inaad warqadaas screenshot inaad ka qaadataan oo mataqaanaa aad step by step kaasoo kale idinka lafteeduna aad isticmaashaan waxa laga yaabaa hadal ahaan inaad fahantaan balse laakiin aad iloobi kartaan markaa warqad ahaan idinkoo haysta xaafadda markaa mar walba ku eegta waxaad sameynaysid macnaha isbuuca koowaad isbuuca labaad isbuuca saddexaad macnaha xawaaraha calaamtadu ay ka koobnaan doonto waxa warqadda lafteedu kaliya ta maaha qofka garoonka ka maqnaa waqtiyo badan balse laakiin qofka xataa hadduu dhaawac ku jiray oo mataqaana dhaawac uu kasoo kasbaday uu doonayo mataqaana inuu imika uu dib u bilaabo calaamtadii waxaas way anfacaysaa isaga laftiisa markaa warqadan xataa waxaa laga yaabaa inaad mustaqbalkaba dhaawac kusoo gaaro dhaawac ilaahay kuma soo gaarsiiyey markaa macnaha muhiimba macnaha iskaba ahaan weydaba iska download garaysa ama screenshot ka qabo qodobka labaad ama shayga labaadina wuxuu yahay inaad isku dayid jirkaaga inaad daryeeshid muhiimad weeyaan inaad mataqaanaa markaad calaamatada gashid eed soo calamitaysid inaad waxoogaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo isku day inaad waxoogaa garoonka ku yar wareegtid kabacdina aad jirkaaga aad stretching ku yar samaysid oo deer kala saartid adigoo jirkaaga nasanaya taasna waxay u sahlaysaa jirkaaga inay takoobaad dhaawac si yar fudud inuu kuusoo gaadhin talabaadna waxay tahay inuu jirkaagu si degdeg ah u nasto ood maalinta dambe aad calaamitayn kartid markaad calaamatada ka timaadid waxoogaas stretching yar samee 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo keliyata waxoogaa garoonku yar wareeg adoo aayar rucleynay markaad xaafadda timaadidna isku day inaad cunto fiican siisid waayo jirkaaga markaad calamitaysid waxa kaa baxay waxay tahay energy baa kaa baxay marka energy-ga isku day inaad dib u soo celisid adoo cunaya cuntooyinka ay ku badan tahay carbohydrate-ka cuntooyinka ay ku badan tahay waxaan filayaa inaad taqaanaan imika sida baasadoo kale bariiska oo kale baradhaha oo kale waxyaalahaas oo dhan badso markaad garoonka ka timaadid isku dayna cuntooyinkaasi inaad jirkaaga siisid ama jirkaaga aad gelisid ta kalena waxay tahay haan iloobin inaad protein aad jirkaaga siisid waayo murqihii baad isticmaashay markaa isku day markaad xaafadda timaadin inaad cuntooyin ay mataqaanaa proteinka uu ku badan yahay inaad cuntid taasina mataqaanaa waa cuntadii iyo nasashadii marka waxaan filayaa markaad labadaas shay samaysid labadaas shayna waxay kala ahaayeen inaad markii koowaad step by step garoonka adigu soo noqotid iyo adigoo markaad garoonka tagtid inaad xawaarahaaga aad eegtid macnaha aad mar walba aad eegtid intee weyn xawaaraha calaamtadooda ama qaab nooceeya ay ka koobnaan doontaa markaa mar walba inaad meesha hoose kasoo bilowdid aad kobciso shayga labaadna wuxuu yahay inaad isku daydid jirkaaga inaad daryeeshid inaad cunto fiican siisid iyo markaad calaamatada kasoo baxdid inaad nasiisid oo mataqaana xogaa stretching aad samaysid iyo adigoo garoonka yar wareegaya soo jirkaaga u nasto macnaha waxyaalahaas oo dhani ama labadaa shay ee aan kuu sheega waxay ka hortagayaan ama mataqaana waxay u diidayaan jirkaaga inuu dhaawac si yar fudud kuusoo gaaro iyo jirkaagu inuu kusoo noqdo si yar fudud sidii uu ahaan jiray ama macnaha jirkaagu siduu u ahaa inuu dib ugu soo noqdo murqa ahaan iyo maskaxiyan ahaanba markaa muhiimadu waxay tahay mar walba inaad adigu jirkaaga eegtid kolba waxaad u baahan tahay adaan iga garanay jirkaagu siduu u shaqeeyo iyo jirkaagu macnaha awoodda uu leeyahay waxaan filayaa inaad fikir ahaan iyo waxaan jeclaaday inaan kula wadaagay inaad iga dhageystay ama aad iga daawatay waa inoo videoga dambeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu